dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aanan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay darwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay darwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhulay dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay gaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markuda kama dhirkaaye nabaday saaxiibayaal halkani waa baydhabo gaar ahaan meesha loo yaqaan galbooda baydhabo oo ah goob aad u qurux badan sida aad muuqaalada ka arkayseen meelo kala duwan oo biyo ay ka soo daadanayaan dhir cagaaran iyo weliba goob indhaha iyo jawiga aad ugu roon ayaa halkaani ugu imaanaysa dalku waa barwaaqo gaar ahaan reer koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo laakiin waxay rabtaa in laga faa'iideysto nimcadaas ilaahay oo keenay ama dalka taala waxay rabtaa dhalinyaro dalka wax soo saarkiisa iyo maxaan ku dhahay taay barwaaqadiisa fahansan oo u kaca hormariya waxna ka qabsada waayo nimcada ilaahay la siiyay hadaan wax ka qabsan cid kale oo wax nooga qabato aynu sugayno ma jirto in cid kale ay ka faa'iideystaan wax daran ugu ma jirto marka waxaan leenahay reer baydhabo barwaaqada ilaahay oo dhigay hirbooda iyo guud ahaanba baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed ka faa'iideysta dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay gaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed maxamed maxamed meel ka sugan hadda garbooda gaar ahaan waxaa ku taal laabada jir maalin kasta intii fusulna dal xiisana meel barwaaqsan waaye adiga aragtan bi aqaarib bi adaan nadiif ku inta ku faa'iideysid waaye ay dal xiis maalmaha iskool oo fasaxayn kamisid ma qoyan rabbi baa